بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan hadda ku sugannahay garoonka caalamiga ah ee Muqdisho Aadan Cabdalle. waxaan hadda soo go'tinay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo hadda aan u dhoofay dowlad goboleedka Jubbaland caasimadda Kismaayo oo saldhigga maamul goboleedka ah kadib markii shirkii uu ku soo dhamaaday muddo loo isbuuc socday fashil isafgarad waa taasoo mas'uuliyaddeeda ay qaadayso dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama golaha mustaqbalka ay muujiyeen dhabar adeeg war-saxaafadeedna ku soo saareen warkooda oo dhammaystiran laba isbuucna u dhabar adeegayeen in wadahadalkaasi iyadoo ummadda Soomaaliyeed duruufo ay ku jirto muddaxileedka dowladahana gaabsi uu yahay baarlamaanka bil iyo bar wax ka yar uu ka dhiman yahay madaxweynaha laba bilood u dhiman tahay in macnaha madaxweynaha iyo xukuumadda ay ku gacan saareen in wax natiijada shirkaas uu ka soo baxo iyadoo waxa lagu kala tegay ugu weyneed dastuurka dalka isku hayo heshiis bulsho ah oo madaxweynaha uu ku adkaystay in cidna loo joojinaynin iyo electionka oo muddaxileedka maadaama gaabsi uu yahay in laga heshiiyana oo ka cudurdaartay saas ayaana keentay fashilka meesha ka dhacay mas'uuliyadda waxaa qaadaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha annaga xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ah Jubbaland waxaa hadda soo wadaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland insha Allah aan rajaynaynaa si nabadgelyo inuu ku gaaro caasimadda shaqooyin badan baa u yaalay ama santii